بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu maanta soo qaadanaynaa qiso aad iyo aad u macaan ninkii ku riyooday isagoo libaaxiriyanayo waxaa la sheegaa in nin uu dhex socday kaymaha Afrika halkaas oo uu aad ula dhacsanaa quruxda iyo bilicda dhirta iyo abuurista Allah Azza wa Jal isagoo ku raaxaysanaya aragaas quruxda badan waxa uu maqlay mar kaliya codka cadow si dhaqso ah ugu soo dhawaanaya ninkii gadaashiisa ayuu eegay mise waa libaax weyn oo aad u gaajaysan oo gadaashiisa taagan ninkii wuu orday sidii uu ordayay waxa uu soo dul istaagay ceel aad u dheer isla markiiba wuu ku booday wuxuuna qabsaday xarigii ama gacankii biyaha lagu soo qaaday ninkii wuu yara nafisay naxdintiina way ka yaraatay laakiin wax yar kadib wuxuu maqlay codka mas oo aad ugu dhow oo ceelka guntiisa dhex fadhiya wuxuu bilaabay inuu ka fikiro sidii uu xal ugu heli lahaa maska iyo libaaxa laakiin isla markiiba wuxuu arkay laba jiir oo mid uu cad yahay midna uu madow yahay kuwaas oo xarigii uu ninku haystay soo koraya labadii jiir isla markiiba waxay bilaabeen inay cunaan xarigii uu ninku haystay asna wuxuu isku dayay inuu xariga dhinaca bidix iyo dhinaca midig u dhaqaajiyo si jiirku u dhaafaan xariga ninkii asagoo oo aad u naxsan ayuu arkay malab ceelka dhinaciisa shini ay ku samaysay wuxuuna bilaabay inuu iska cuno oo uu iska ilaabo dhibaatada ku soo food leh si dhaqso ah ayuu ninkii hurdada uga toosay wuxuuna riyooday riyo la yaab leh wuxuu go'aansaday inuu u tago qof u fasira riyadaas wuxuu u tagay caalim markii uu uga faalooday riyadii sheekhii intuu qoslay ayuu weydiiyey miyaadan garanayn tafsiirka riyadaas ninkii wuxuu ku jawaabay maya ma garanayo sheekhii wuxuu ku dhahay libaaxii ku eryanayay wuxuu ahaa malakul mawdka ceelkii aad ku dhacdayna ee masku fadhiyeyna wuxuu ahaa qabrigaaga xarigii aad qabsatay wuxuu ahaa cimrigaaga labadii jiir mid uu caddaa midna uu madoobaa waxay kala ahaayeen maalinta iyo habeenka waxa ay naaqusiyaan cimrigaaga ninkii wuxuu weydiiyey sheekh malabkiina muxuu ahaa wuxuu ugu jawaabay sheekhii adduunyada ayay ahayd waayo way macaan tahay wayna ku ilowsiinaysaa geerida iyo xisaabta aakhiro walaalayaal yaynan ku dagsoomin adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda aynu u diyaargarowna geerida iyo xisaabta alleh والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون haddaad fiidiyowga ka heshay taabo like iyo subscribe sidoo kale waxaad taabataa jariska kaas oo kuu sahlaya fiidiyowga cusub sidee aad u daawan lahayd